wanaagsan idil ahaantiinba mar kale iyo barnaamijkeeni su'aal qaran oo aan ugu talagalnay inaan ku wareysano sida siyaasiyiinta, macallimiinta, waxgaradka iyo aqoon-yahanada. haatana barnaamijkeena waxaa marti inooga ah Ustaad Abikar Xuseen Bashiir oo ku magac dheer Albashiir. Ustaadka oo maantay noogu soo booqday xarunteena xidigta October, weliba uu macallin uu ka yahay iskuulka dadka aragga la ee Albashiir. Ustaad kusoo dhawaad. waa ku dhawaad aad mahadsantahay. marka hore waxaan ku hormarayaa adiga iyo ardaygaaga Daahir Dalmar Caddo kusoo dhawaada adiga asaga. hayo Ustaad, tani intaad iskuulkan Albashiir aad waday maxaad naga xasuusin kartaa bilowgiisii, xilligii la aasaasay, hiigsigiisi waxa uu ahaa, xilligaad ku bilowdeen, ardayda inta la eg ee aad ku bilowdeen? bismillahi raxmaani raxiim. iskuulka Albashiir caruurta aragga la wax lagu baro waxaan ka furnay magaalada Muqdisho sanadkii 2011. annagoo ku bilownay hal qol iyo maxaan ku dhahaa 10 arday oo aragga la oo laga keenay gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Banaadir. runtii way adkeed in dadka aragga la wax la baro oo maxaan ku dhahaa laga dhaadhacsiiyo waalidiintooda in dadkaasi aragga la wax baran karaan. waxaa kaloo caqabad sii ahayd bulshada ay ku dhex nool yihiin ma aaminsaneyn in dadka aragga la wax la bari karo. alxamdulilah juhdi dheer iyo dadaal dheer kadib waxaa noo suura gashay in aan 10kaasi arday aragga la oo isugu jireen 6 gabdhood iyo 4 wiil aan ku bilowno waxbarashada dugsiga hoose. annagoonan haysanin xarun aad iyo aad u weyn oo wax lagu bari karo, annagoonan haynin qalabkii wax lagu bari lahaa, annagoonan haynin budget ayaga u gaar ah oo loogu talagalay. alxamdulilah waxaa kaloo igula jiray rag odayaal ah iyo dumar oo maxaa ku dhaha aragga la oo yaraantoodii aan waxba soo baranin oo waxbarashadii yacni wadankii sidaad ogtihiin maba ka jirin in dadka aragga la wax la baro tan iyo markii aan xornimada qaadanay. maadaama ay ayagii waxbarasho la-aan ku dhacday waxay ka dhiidiyeen in aysan jiilka hadda soo koraya aragga la aysan ayagana ku dhicin. alxamdulilah gacmaha ayaan isqabsanay, contribution ayaan annaga jawaabkeena ka aruurinay. waxaa noo suura gashay kadib inaan 10kaasi arday waxbarashadii u bilowno annagoo ku barayna keliya qaab maqal ah oo wax qoraal ah ma jirin maadaama qalabkii aan la helin. muddo kooban gudaheed waxaan dadaal ku sameynay in aan la xiriirno jaaliyadda Maraykanka iyo Ingiriiska. kadib waxaa noo suura gashay in aan guri ka weyn halkii qol aan helno, caruurtii aan soo kordhino oo 20 aan gaarsiino, u helno qalabkii wax lagu bari lahaa. qalabkaasi waxyaabaha ugu cajiibka badan waxay ahayd in nin ajnabi ah oo u shaqeeyay UN-ka si shakhsiyan asaga uu dalkiisa ka soo gaday qalabkaasi oo ahaa qalabkii ugu horreeyay ee dadka aragga la aan wax ku barno. waa tahay waxaad arkaysaa xaaladda Muqdisho markii laga hadlaayo xilliyadan dambe waxaa ka dhawaajisay inaad iskuulka asaasteen 2011kii. waa xilligii ay soo bilaabanaysay dhibaatada dadka maanta waxyaabaha qarxiya ee ka geysta dalkeena hooyo ee Soomaaliya siba caasimadiisa. haddaba taniyo intii 2011kii ilaa iyo haatan oo dadkii aragtida qabay oo ay maantay marna iskuulkoodii xaalad amni ay u xirmayeen, marna xaalad amni loo furmayay, oo timekii aanan loo helaynin in iskuulka qofkii qaato cuddadii waxbarashada loogu talagalay uusan dhammaystirmaynin. bal ka waran sidee ugu degan tahay qofka maanta aanan aragga lahayn? intay juhdi qaadan kartaa? maxaa sax calaaqaad ah oo aad la samayseen xagga dowladda ama xiriir caalamiyaal ah? aad iyo aad u mahadsan tahay. markaan ka hadalno caqabadaha jira caruurta aragga la ee maanta dhigta dugsiga indhoolayaasha Albashiir ama caruurta aragga la runtii waxaa ku jira caruur ku indhabeelay dagaaladii ka socday wadanka gudahiisa, gaar ahaan u dhexeeyay dowladda iyo al-shabaab. annaga markaan iskuulka bilaaweynay way adkeed in aan iskuulkaasi ka shaqeyno sababtoo ah dhanna iskuulkii ayaa ku yiilay oo subaxii soo shaqo tegi jirnay, habeenkiina waxaan ku hoyan jirnay meel nolosheena aad iyo aad maxaan ku dhaha u khatar gelinaysa.
caqabado badan ayaan soo marnay oo barnaamijkaasi ah. qaarkiina markaan shaqadaasi bilownay soomaalida waad ogtahay ma aaminsan dadka ariga la waxbaran karaan. aniga maamulaha iskuulka ka hadda kula hadlayo 10 saac galab iyo rubi daqiiqa ayaa guri lagala baxay iskuulka oo meel xabsi leegeeyay leedahay dad indhala aad wax bartaa maxaan ku dhahaa waad gaalaysaan iyo waxyaabaha la joogin. alxamdulillah waxaa suura gashay in ilaahay xorriyadeeda dib ii siiyo kadib aan iskuulkii meel amni ah oo fiican oo maxaan ku dhahaa aan ku shaqay karno aan u guurno. marka caqabadahaas aad iyo aad ayay u badan yihiin. dad waalidiinta ka mid ah qaarkooda guryahoodii maxaan ku dhahaa loogu tegay oo carruurtii xaggeed u dirteen siday wax u baranayaan iyo barnaamijka noocaasi la weydiiyey. dhanka calaaqaadka markaan ka hadalno dowladda Soomaaliya inkastoo maanta aysan jirin barnaamij siyaasad cad oo u gaara dadka baahida gaarka ah qaba gaar ahaan kuwada aragga la inkastoo aysan jirin calaaqaad fiican ayaa nagala dhexeeya weliba sanadkani hadda aan ku jirno iyo sanadkii lasoo dhaafay. heer waxaan joognaa maanta uu soo booqday iskuulka xeelaliye guud ee qaranka xildhibaanada qaranka ay usoo kala tartamaan inkastoo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayno juhdi badanna geliyay xildhibaan Mustafa Shaqaale Bixulow oo horey u ahaan jiray maxaan ku dhahaa wasiirkii wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha. sidoo kale waxaa jira mas-uuliyiin soo booqday ay ka mid yihiin wasiiradii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Marwo Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan. dhanka calaaqaadka dowladda markaan ka hadalno waayadan dambe aad iyo aad ay wanaagsan tahay. gudoomiyihii degmada Waaberi oo kale hadda la bedelay carruurta iyo maamulka dhan xarunta intuu geeyo wuxuu sameeyay qado sharaf uu sameeyay. gudoomiyaha cusub ee hadda degmada loo soo magacaabo iskuulka meesha uu ku yaala dowladda waxay ku wareejisay qalab xafiiseed iyo joodar iyo alaab badan oo loogu talagalay carruurtaas aragga la inay ku seexdaan oo isticmaalaan. marka runtii waxaan dhihi karnaa cilaaqaadka dowladda tan iyo markii aan iskuulka soo bilaabnay ilaa iyo maantadan aan joogno runtii way ka duwan tahay sanadkii aan iskuulka bilownay 2011kii 2012kii laakiin waxaan dhihi karnaa 2014kii iyo 15kii hadda aan ku jirno runtii cilaaqaad aad iyo aad wanaagsan ayaa nagala dhexeeya dowladda oo maxaan ku dhahaa ardaydeena waxay nasiib u yeesheen inay ka qayb galaan xafladii 15 May oo ay qaarkood khudbada ka jeediyeen oo runtii madaxda qaranka oo dhan ay usoo istaageen sidii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaare ku-xigeenka maxamed cumar cabdiqaalib gudoomiyaha baarlamaanka. weli waxyaabaha xasuusida mudan waxay tahay gudoomiyaha baarlamaanka habeenkii xafladda ka istaagay wuxuu dhahay in hal iskuul oo magaalada ku yaalo dadka aragga ay wax ku bartaan haddana kira laga bixiyo macquul maaha. gudoomiyaha gobolka ayuu amar buuxa ku siiyay dhulka ee naafada lahayd in uu baneeyo isla markaasna dayactir lagu sameeyo oo la dhiso si iskuulka loogu wareejiyo isla markaasna carruur badan oo aragga la oo registerka noogu jiro aan waxbarashada u siino. waa tahay haatan waxbarashada aad bartaan dadkan aragga la ee saameysay waxbarashadu tayada noocee waay waxbarashada ma waxaad ugu soo bilowdaan sida macaahida caadiga oo kaleeta ah ee dugsiga hoose dhexe ilaa sare maad gaarsiisaan ma waxbarasho elementary oo gaar ahoo waxaad siisaan oo tababar qofkii usii furayso qofkii weyn waxbarashadiisii seegtay ah waxbarasho qaab noocee ugu dugan tahay qofka aragga qaba ee waxbarashada uu barto. midda kale dadkan ee aragga la waalidiintoodu maxay ka aaminsan yihiin markaad ku wacyigelisaan ee aad tiraahdaan dadkiina wax idin baraya ma waxay tahay fikradoodu inay ka dhadhacsan tahay dadkan in dad loo isticmaalayo siyaabo kale ama dhaqan kale ka duwan dadka kale oo interest gaar loo sii sameynayo mase waxay aaminsan yihiin dadkoodii ee maantay heli waayay fursadda qaaliga ahayd ee waxbarashada heli waayay inay maanta dib u heleen siday waalidiinta aragtidoodu tahay markaad la kulantaan. dhanka waxbarashada markaan ka hadalno waad ogtahay wadanka burburkii kadib ma jirin manhaj gaar ah oo loogu talagalay iskuulada ka baxa. qolo waxay iska dhigaan manhaj carabi ah oo qolo manhaj ingiliish ah qolo manhaj UNESCO qolo walba manhaj iska isticmaalaan. annaga iskuulkeena manhajka aan isticmaalno waa systemka Kenya. waxa wax ku barnaa luqadda Englishka waxyaabaha aan barano waxaa ka mid ah wax alla wixii iskuulaadka ka baxa sida sayniska Englishka cilmiga bulshada xisaabaadka Soomaaliga Carabiga iyo tarbiyada. waxyaabaha kaliya dadka aragga la siyaadada waxaa ka mid ah sidaad arkayso dalmar hadda wuxuu wataa u shacab qaabkay ugu socon lahaayeen maada u gaar ah jirta orientation mobility la dhaho. waxaa kaloon barnaa maada ayaga u gaar ah activities of daily living la dhaho taasoo yacni ka saacidaysa qofka aragga la in la baro siduu noloshiisa u maareyn lahay ama ay nolosheeda u maareyn lahayd.
مثلا هدو عنوga in la leeyahay waxa dhici karta gabadho kale marka ka soo qabto hooyadeedii waxay arkay jikada ku jirta cuntadii karinaysa dharkii dhaqaysa wax walba qiyaasta indhiga ka arkay laakiin qofkani waxa ma jeedo way arag laada sidee marka ay ugu soo gelaysaa in wixii ay ayadana isticmaasho sidaas daraaddeed maadadaas ayaan barnaa oo DL la dhaho sida cuntada loo kariyo dharka loo dhaqo noloshooda hagaajin lahaayeen guryaha loo xaaqo iyo wax alla wixii soo raaca maadada saddexaad waxay tahay farta braille-ka qofka indhaha la aduusan braille baranin waxba ma baran karo marka fartaasi braille-ka ayaga loogu talagalay ayaan barnaa maadada afaraad waxay tahay recreational activities qalab ayaga u gaar ah oo kubadda oo kale waxaa jirta gambaleel yar ku jiro dhawaaqayo qaylinaayo qalab kale ay u gaaro ay ciyaaraha isticmaalaan ayaa jirta waxaa soo raacda maadada computerka kale ayagana waa barna hadda alxamdulillah iskuulkeena heer aad iyo aad u sareeya ka gaaray barnaamijkaasi waxaa ku jira computerka software dadka aragga la loogu talagalay taasoo ka saacidaysa qofka indhaha la in wax alla wixii uu qoro dhawaaqiyo maqla hadda xaraf hadduu qoro aqrinaa magac hadduu ku qoro sheega waxyaabo badan maxaan ku dhahay wixii ka saacidaya dhanka waalidiinta markaan u soo noqdo sidaan hore kugu sheegay waalidiinta waa caqabada koowaad dadka aragga la sababtoo ah qofka markuu indho la-aan ku dhasho ama uu indhabeelo inta badan dadku waxay ku indhabeelaan hal sano iyo wax la jira ayagoo jira cudurkan jadeecada ayaa helo waa indhabeelaan qaarkooda way ku dhashaan qaarkooda xoog ayaa indhahtira waalidiinta mar alla markay noocaasa dhacdo in ay waxbarasho u ogolaadaan iskaba daaya waxaa dhacda inay ku kala tagaan hooyadii aabbaha uu aabbaha dhaho weligayga abka ab ma soo dhalin farac ka farac canug indhala ay gabaryahay adi xaggaadu ka iman gabadhan waxaa laga yaabaa inay dhahdo maamade war aniga weligeena maxaan ku dhaha wax indhalaa ma arkin oo qoyskaaga maybe laga keeno sida inay ku kala tagaan wayna joogaan iskuulka qaar aan aabahooda meel ku sheegin qaar aan hooyadooda meel ku sheegin taasi familiga gudihiis marka laga soo gudbo canuga indhaha la gabadha ama wiilka inay iskuulka keenaan iska daaya gurihii ku qarinay waxay leeyihiin yaan lagugu arkin waa ceeb waxaa lagu leeyahay hebel canug indhala u dhalay iyo waxyaabo badan oo aqoon dareen u geynayso runtii annaga iskuulka markaan furnay way nagu adkeed inaan ardayda isla markii iskuulka keeno waxay danta qaar nagu qasabtay waalidiinta inaan u tagno u sheegno ka dhaadhicino in caruurtaani aragga la ay wax baran karaan gurihii laga soo saaro waalidiinta qaar oo iska baajilacsan yihiin isla markii waxaa laga yaabaa inay ogolaadaan laakiin 95% waalidiintu way ka dhigaadaygaan marka waxaan ku qancinaa inaan transport siino iska daa markii qoyska joogaan canuga indhaha qaba iskuul fiya laga bixiyaa oo lacagtiis billaha gaari raaca la siiyaa bugaaga loo gada wax walba la siiyaa laakiin kan indhaha la waxay leeyihiin wax uu kugu soo kordhinayo ma jirto marka waxay dadku qasbay inay gurigii ku qariyaan raadiyo yar loo soo gado raadiyo iska dhigayso idaacadaha iska dhigayso la dhaho marka waalidiinta qaar waxaan sameynaa lacag ayaan siinaa oo transport iskuulka say u imaadaan oo ay arkaan waalidka qaar markay iskuulka imaadaan oo ay arkaan canug indhala oo ingiliishka ku hadli karo carabiga qori karo bugaagta akhrin karo wax walba qori karo isla markii qanaca ay galayso waxay dib ugu noqdaan gurigii carruurta sidii ku keenaan laakiin way adkeed wayna adag tahay weli ilaa iyo hadda waalidiinta qaar in laga dhaadhacsiiyo qaarkooda waxaan sameynaa waxyaabo soo jiidasho ah maalan raashinaan siinaa amba lacag laakiin muddo 3 bilood 2 bilood kadib waalidiintu waxayna la fahmayaan carruurta inay wax baran karaan sidaas daraaddeed waxay u ogolaadeenayaan in ardaydii ay wax bartaan waayadan dambe oo kale waxaan sameynay inkastoo uu naga saaciday xildhibaan Mustafa Shaqaale Bixilo wacyigelin badan oo TV-yada ka baxay oo idaacadaha ka baxay runtii hadda waxaad moodaa in ardayda ay iskuulka bilba bisha kasii dambaysa markay ugu yartahay 4 caruur ama 5 caruur la keenaa bisha hadda waxaan bilownay barnaamij indha fiiqis ah waalidiintii markay barnaamijkii arkeen hadda danta waxay ku qasbeen inay carruurta iskuulka ku soo xiraan laakiin runtii waa caqabad aad iyo aad maxaan ku dhahaa meesheeda taala oo dadka badan ee aragga la يعني كجوجس إني وحبرتان ووالد أنت حكمته. أوكي واتاي. أنت أدودين أفتن سنة أدلحر بنيسين أرديدان أرجع سامسي أنا وحكة أركيني أفرت السنة إمسح مادام أذكر واجسي طبعا عرورة له قبلود أفرويل أي تاعي dad ma jira waxbarashada qaabkaad ugu qoondeyeen ka gudbay oo abaalmarina aad siiseen
ma jira haatan dad idinla soo xiriiray ama idinkula talagalay hay-ad ha noqoto ama dowlad ha noqoto oo dadkaani hiigsigoodu markii ay gaaraan ay idinka qaataan ama calaaqaad kale aada la samaysataan si oo qofka waxbarashadiisa meesha ugu ekaanin uu u gudbo marxalad kale ee labaad? su-aashaan intaan kaaga jawaabeen su-aal hore hadii weydiiso ilaa wayaa jirto systemka iskuulka ama qaabka waxbarashada. maadaama dowladii Soomaaliyeed aysan u diyaarinin system dadka aragga la wax lagu baro, maadaama waalidiintii aysan aaminsanin carruurtii aragga la inay wax baran karaan, bulshadina ay bakasi xagayso. iskuulka annaga hadda aan furno waa iskuul special oo dadka aragga la keliya loogu talagalay. fasalka 1, 2, 3 ilaa iyo wuxuu leeyahay fasalka 8. carruurta hadda dhigata iyo markaan bilaabeyna 10 carruur ku bilaabnay 22 carruur. maanta laakiin waxaa dhigata 32 carruur oo 16 ay gabdho yihiin 16 ay wiilal yihiin. dafcadii ugu horeysay ee klaaska 8aadna aan bishii hadda la soo dhaafay ay ka qalin jabiyeen oo hadda sanadkaani waxay aadayaan dugsiga sare. dugsiga sare waxaan ugu talagalnay maadaama bulshadii aan ugu talagalnay inaan soo fahamsiino dadka aragga la inay wax baran karaan. dugsiga sare waxaan ku talagalnay inaan inclusive ka dhigno oo dadka aragga la aan kaligooda si gaar ah dugsi sare loogu furin oo ardaydii kale aragga qabtay in lagu dhex daro. iskuulka waxaa ka qalin jabisay 3 gabdhood iyo 1 wiil oo bishaan had Agosto aan ku jiro dabayaaqadeeda aadi doono dugsiga sare. ardaydaas oo kale waxaan u raadinaynay sponsorship in la kafaalo qaado qalabkii wax ku baran lahaayeen iyo waxaan ku dhahaa dumarta alxamdulillah hadda waa nagala oggolaaday oo afartooda maxaan ku dhahaa wax alla wixii ku baxa hay-ad islaamiga oo aasis la dhaho ayaa dhabarka u ridatay oo kafaalo qaaday. dhanka kale dadka aragga la ee da-da waaweyn aan hore waxbarasho u helay ilaa iyo 4 dufcadood ayaa hadda ka qalin jabiyeen. dufcad walbana waxay ahaayeen 30 ruux oo aragga la oo da-dooda u dhaxayso 25 jir ilaa iyo 54 jir. afartaas dufcadood hadda 6 dufcadood oo hadda ka qalin jabisay waxaan naga saaciday hay-adda waxbarashada Africa Educational Trust. runtii waxaan barnay sida computerka isticmaalaan, waxaan barnay dhuxul macmal ah oo la sameeyo aan barnay, waxaan barnay sida leatherka loo isticmaalo kabaha waxyaabahaas loo sameeyo. dadkaas oo kale markay ka qalin jabiyaan waxaan sameynaa inta badan qalab yar ay ku ganacsadaan qof walba waxa uu bartay. مثلا كمبيوتر دو قفك برتي كمبيوتر يلا راديا سي مقالة وقالوا قناعسي سي وطو qaarkooda waxaan barnay sida dhuxushaas loo sameeyo kale dhuxushii ka ganacsada marka qol walba noocaas barnaamijkii aan barnay sidiisa ay sii wadaan tan hadda ardayda kale oo da-da yar oo hadda 40 ka qalin jabiyeen oo dugsiga sare aadayaan runtii waxaa jira dadaal badan oo uu wado xildhibaan Mustashar Ali Dhuxulow. waxaa kaloo jira marar la kulmay ku sameeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ahna wasiirka cadaaladda waxaan la kulanay oo iskuulka nagu soo boqday xeer ilaaliyaha guud ee qaranka runtii xeer ilaaliyaha juhdi weyn uu geliyay isla markaasna dadaal badan wuxuu galay ilaa iyo heer madaxda qaranka inuu barnaamijkaas ka dhaadhacsiiyo la shaqaaleysiiyo hadday wax bartaan dhismo weyn in loo helo dhul weyn loo helo. sidaan hadda markaan soo tagay kala ku kulanay dhul weyn ayaa wuxuu noo ballan qaaday isla markaasna na siiyay taliyaha asluubta General Bashir oo uu dhahay dadkaas aragga laha loo dhiso iskuulkan yar ee kiradaha laga bixiyo. marka runtii dadaal aad iyo aad weyn ayaa socda dhanka dowladda mas'uuliyiinteeda ugu saareeya ay ugu raadiyaan dadkan in la shaqaaleysiiyo waxbarashadooda in wax weyn laga qabto iyo barnaamijyada kale dadkaas aragga la qoseeyo. وتاي مركان waxaa uu tala galay in walaalkeen asagana darmar ay u noqoto Jaanis oo maantay bulsho weynta inteeda kale oo halkan baraarujiye ka qaato oo asagana aragtida halka uu ka qabo iyo qaabkii uu waxbarashada ka soo maray marxaladiisii inuu intana kaga faa'iideysto furdiisi oo laba kalmad uu dhaho. alxamdulillah markuu horeyso iskuulka anaga markaan bilaabay ani iyo arday kale ku bilaabnay oo fursadaada way kala duwan tahay waxbarashada Kenya iyo Soomaaliya systemkada. Kenya systemkada oo aan ku dhiganayno waxa ardaydii waxay bixiyaan hadda aniga kale waxa uma jeeday qarash aan bixinaa billahi alxamd dadkan waxa anigu oo la weydiin lahaa dadkiisada walaalkeen oo kale macalinkeyga waa midkii ugu aasaasay oo farta braille baray intaan waddankan soo aadin waa macalin hadda aniga ku kalsoonahay waa mar walba ugu dadaalay
sidaas aawadeed hadda markaa waddankaan imaaday ma umaleynaynin dadka hadda annagoo kale qarash ma bixinayaan isdhaayo waa ilaan ardaydii qarash alla ay bixinayaan waxaa arkaysaa qofkii hadda wax uma jeedo waxaa leeyahay haddii aad qarashka aadan haynin orda guriska aad keligiisa la dirayaa macadala misdhehaysid cunugan maxaa disabilityga waalidkiisa kusoo waa isweydiinaysaa laakiin alxamdulilah waddankeena waa macalinkan aada ugu dadaala juhdi ku bixiya laakiin meel qaar haddaan fiirsata qofkii noolaha waxa wax walba uu ku dadaal ku bixiyo uu baranayaa anaada systemka ku baranaya waa system Kenya sanadkan hadda classida aan ahay marka waxaa loo baahanyahay in ay si dadaalaan oo si sameeyaan systemka ku dadaalaan hadda anoo kale without ushan oo kale ma socon kari ushan waa meesha guiding ay gelinayso doona ama horumarka hadda aan gaarsiisanayn gaari doona marna hamigaas uma jirin waxa uu isku haystay keliya ani keliya ayaa waxaa isku hay nool kala dunida ma jiro waan guri keliya kama soo bixi karo laakiin markuu macalinkan iyo asxaab kale ay ugu tageen ay fartan iyo bareen sidaas ku bartay luuqad waxaan ku gaaray ilaa iyo fasalka shanaad kusoo gaaray shanaad markaa kusoo gaaray waxaa imaaday waddankan aan imaaday oo fursad waxaa helay oo caawiye aan helay markii lagu caawiyay intaan imaaday inta markaa iskuul waxaa ku biiray oo ajine oo Soomaaliya aan dhiganaynin arday oo waddankaan dhiganaya iskuul dhiganaynin luqadoodii maana fahmi jirin mararka qaar waxaa go-aan ku gaari jira ay ma wadi karin waa naqanaya waddankii u naqanaya waalida tan la xalaano waddankaada u naqanaysa adoo ebelben oo aragga aan la eeday hadba ila talin jiray ilaan qofkii macalinka wax kusoo baray ma iloobi karto systemka waxbarashada maanta taaganahay waa had u wanaagsan laakiin midda keliya dadweynaha ka codsanaya waxaa ka codsanaya in waddanka walaalaha ardayda dadka curyaanka inay caawiyaan siyo in lacagka keliya gacanta u gelisid ma aha inaa u talageshid qalabka oo hadda maanta bori isteelahada borkolka hadda Kenya wuxuu ka joogaa around 60,000 camal ka joogaa waa 6,000 Kenya money ah haddii Soomaaliya la fiiriyo waa qaali ka yahay waa around $50 ama $100 camal joogaa qalabka aan isticmaalayno ma helayno dib waa laakiin buugi qalinka buugaagta dukaanka shop waa kasoo helaysaa laakiin qalabka anaga maanta u baahanahay ma helay hada u shan oo keliya hada dhammaad aan hali isoo raadiyay meelaha laga raadiyay ma la helay unless inaa wadan shisheeyaan Yurubta ama meel kale Afrika oo meelaha aad horumarsan inaan raadino maayna marka waxaan ka codsanayaa walaalaha Soomaaliyeed in iskuulka la caawiyo dadka gaar ahaan ardayda inolaha la caawiyo qof walba curyaan la caawiyo si uu ku caawiso in lacag siiso ma aha waxa ku caawinaysaa in guri ka soo bixisid bartid qaabka u soconayo bartid waxa leedahay war soco guri laakiin hadii aku talisid inuu guri ku joogo ada qaat iskale oo ku wanaani waxaan dhilaa qof walba gacmaha qabano walaalena caawino aniga kamida qofka wax baranayno idinka oo Soomaalida wax baranayno anaga in بريك مال ودن يعني قيمة كلنا ما إن لا فوق خوف كعرض أو بني آدم كأو إلا ده خوف كعريان وما لقمان كأو وحموس النجس الله طيب حكوا لنا داره وما هو نفسه هذا طيب حكوا له كبوليسا بريك مال وكل حنا اللي تصل بسرعة على مركب وأنا ده أقول أنا حادث هنا disability is not disability مركز سأقول ترى لها أوكي ما هذا الرجع maxaa hadda aad leedahay xagga mustaqbalka ama rajo maxay ay tahay kaalinta labaad ee maanta aad hiigsanayso haddii hadda ay ku dhamaato iskuulka mustaqbalkaagu ma jeceshahay inaad ka noqotid fananka dadka ay kala qabanayaan sida hadda doctornimada ama injineernimada ama professornimada maxaa rajeynaysaa maxaase jeceshahay oo hamigaagu uu yahay ama riyada kugu soo socoto ee dhow ee aad rabtid inaad qabsatid walaal aad iyo aad ma santahay أنا رجدا أنا هذا أقوى حواي ما دام أنا قاعد سنين حوين أو disability أو موقف عريانة اللي أنا أكوجين أو وزير أكوجين وحد كلي أود على ما أنا حائنا political affairs نعجله أو نعي سياسة ده أو كقب جله وحمان الصعداء كقب جله عن disability أنا بدأت عريانة كل حوين نقول هانو دولة أحاطه حل أما وزير نما أما حلوان نما أما وحول دولة إنك حق عن كلنا إنك كلها هانو كلي أنت سودا يعلمنا وان المستقبل كان هنجر هنا وحنا قدر politician إننا نظاره
aad iyo aad umahadsan tahay codkii uu cod aad iyo aad umahadsan tahay codkii uu markaa ugu talagalay inuu u diro walaalkeen Dalmar halkaas ayaan ugu gudbinaa haatan waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ustaad Abikar Xuseen Bashiir kelmadii uu kaga aadan uu ka dhihi lahaa sida uu u baraarujin lahaa shacabka iyo halka ugu dambayso oo anaga laftirkeenu nagala qayb qaadan lahaa maadaama maanta ay tahay maalinta World Sight Day ama maalinta aragga adduunka fursadaasi darteed waxaan rabaa inuu nagala qaato una kelmadiisa muhiimka meeshaan inooga sheego Allah iyo waalidiintooda kale runtii siduu Dalmar sheegay qofka aragga la baahida gaarka ah qaba Soomaalida inta badan waxay sameeyaan in half bariisa ama lacag wajibka loo geliyo taas waa wax maalin ku eg ama bil ku eg ama maxaa ku dhalan bil ku eg laakiin qofka in aad wax barto oo maxaa ku dhalan noloshiisa aad qayb weyn ka qaadato waxay sababi doontaa in qofkaasi asna is anfaco waalidkii anfaco qarankii anfaco qof walba anfaco ugu horeyn waxaan dhilayaa waalidiinta dadka aragga la dhalay ama naafada guud ahaan in ay guryaha ka soo saaraan waxbarashadu ogolaadaan ay kala mid dhigaan carruurta kale ee lixdooda lixaad ee taamka tahay ay waxbarashada ka bixiyaan midda labaad dhanka shacabka runtii bulshadeena Soomaaliya inkastoo aan hadda ku xumeynaynin runtii aad iyo aad ay u fahmeen barnaamijkan dadka baahida gaarka qaba in ay si laba jibaaraan fahamkooda isla markaasna ay saacidaad u fadiyaan dadka baahida gaarka qaba gaaraan kuwa aragga la in ay maxaan ku dhahaa wanaajiyaan la taliyaan wax badan u sheegaan oo kaalin ugu leh ka qaataan waxbarashadooda runtii waxyaabaha dhaqamada xubno ah ee sida qofka marka uu naafay yahay aan dhahno lugay iyo gacmi iyo ilay ama indhoole waxyaabahaas oo dhan macno ma sameynayso waa maxaan ku dhahaa dabeecad aad iyo aad u xun sida qalab kale ay u gaaro ay ciyaaraha isticmaalaan ayaa jirta waxaa soo raacda maadada computerka kale ayagana waa barna hadda alxamdulillah iskuulkeena heer aad iyo aad u sare ayaa ka gaaray barnaamijkaasi waxaa ku jira computerka software dadka aragga la loogu talagalay taasoo ka saacidaysa qofka indhaha la in wax alla wixii uu qoro dhawaaqiyo maqla hadda xaraf hadduu qoro akhrina magac hadduu ku qoro sheega waxyaabo badan maxaan ku dhahay wixii ka saacidayaan dhanka waalidiinta markaan usoo noqdo sidaan hore kugu sheegay waalidiinta waa caqabada koowaad ee dadka aragga la sababtoo ah qofka markuu indho la-aan ku dhasho ama uu indhabeelo inta badan dadku waxay ku indhabeelaan hal sano iyo wax la jira iyagoo jira cudurkan jadeecada ayaa hel waa indhabeelaan qaarkooda way ku dhashaan qaarkooda xoog ayaa dhex jira waalidiinta mar alla markay noocaasi dhacdo in ay waxbarasho u ogolaadaan iskama daaya waxaa dhacda inay ku kala tagaan hooyadii abba uu abbaha dhaho weligeyga abka ab ma soo dhalin farac ka farac canug indhala ay gabarihii adi xaggaadu ka gabadhin waxaa laga yaabaa inay dhahdo maamade war aniga weligeena maxaa ku dhaha wax indhalaa ma arkin oo qoyskaaga maybi laga keeno sidii inay ku kala tagaan wayna joogaan iskuulka qaar aan aabahooda meel ku sheegan qaar aan hooyadooda meel ku sheegan taasi familiga gudaha dhigaso idaacadahaas ka dhigasay la dhaho marka waalidiinta qaar waxaa sameynaa lacag ayaan siinaa oo transport iskuulka saa u imaadaan oo ay arkaan waalidka qaar markay iskuulka imaadaan oo ay arkaan canug indhala oo ingilishka ku hadli karo carabiga qori karo bugaagta akhrin karo wax walba qori karo isla markii qanaca ayaa galayso waxay dib ugu noqdaa gurigii carruurta sidii ku keenaan laakiin way adkeed wayna adag tahay weli ilaa iyo hadda waalidiinta qaar in laga dhaadhacsiyo qaarkooda waxaan sameynaa waxyaabo soo jiidasho ah maalan raashinaan siinaa amba lacag laakiin muddo 3 bilood 2 bilood kadib waalidiintu waxay nala fahmayaan carruurta inay wax baran karaan sidaas daraadeed waxay u ogolaadeenayaan in ardaydii ay bartaan waayadan dambe kale waxaan sameynay inkastoo uu naga saaciday xildhibaan Mustafa Shaqale Dhuxulo wacyigelin badan oo TV-yada ka baxay oo idaacadaha ka baxay runtii hadda waxaad moodaa in ardayda ay iskuulka bilba bisha kasii dambeysa markay ugu yartahay 4 carruur ama 5 carruur la keenaa bisha hadda waxaan bilownay weli barnaamij indha fiiqis ah waalidiintii markay barnaamijkii arkeen hadda danta waxay ku qasbeen carruurta iskuulka kusoo xiraan laakiin runtii waa caqabad aad iyo aad maxaan ku dhahaa meesheeda taala oo dadka badan ee aragga la يعني كجوجس إلى وحبرتان موالد أنت حكومة. أوكي واتاي. أنت أدودين أفتن سنة أدل حربينيسين أرديدان أرجع سامسي أنا وحكة أركينين أفتن سنة إمسح ما دام أتكلم واجسي طبعا عروضة اللي قبلود أفرويل أي تاعي
dad ma jiraa waxbarashada qaabkaad ugu qoondeyseen ka gudbay oo abaalmarino aada siiseen ma jiraa haatan dad idinla soo xiriiray ama idinkula talagalay hay-ad ha noqoto ama dowlad ha noqoto oo dadkaani hiigsigoodu markii ay gaaraan ay idinka qaataan ama calaaqaad kale aada la samaysataan si oo qofka waxbarashadiisa meesha ugu ekaanin uu u gudbo marxalad kale ee labaad? su-aashaan intaan kaaga jawaabana su-aal hor haddii weydiiso ilaa wayaa jirto systemka iskuolka ama qaabka waxbarashada. maadaama dowladdii soomaaliyeed aysan u diyaarinin system dadka aragga la wax lagu baro, maadaama waalidiintii aysan aaminsanin carruurtii aragga la inay wax baran karaan, bulshadiina ayba kasii xagayso. iskuolka annaga hadda aan furnay waa iskuol special oo dadka aragga la keliya loogu talagalay. fasalkii koowaad dafcaddii ugu horeysay iyo kalaaska 8aadna ayn bishii hadda lasoo dhaafay ay ka qalin jabiyeen oo hadda sanadkani waxay aadayaan dugsiga sare. dugsiga sare waxaan ugu talagalnay maadaama bulshadii aan ugu talagalnay inaan soo fahamsiino dadka aragga la inay wax baran karaan. dugsiga sare waxaan ku talagalnay inaan inclusive ka dhigno oo dadka aragga la aan kaligooda si gaara dugsi sare loogu furan oo ardayda kale aragga qabtay in lagu dhex daro. iskuulka hadda waxaa ka qalin jabisay 3 gabdhood iyo 1 wiil oo bishaan Agosto aan ku jiro dabayaaqadeeda aadi doono dugsiga sare. ardaydaas oo kale waxaan u raadinaynaa sponsorship